ku soo dhawaada qaybtii ugu horeysay filim ka kooban 3 qaybood oo aan si gaar ah ugu eegi doono marxaladaha kala duwan ee ay soo martay magaalada Marka. Waxaan sidoo kale ku eegi doonaa nolosha dadka ku nool magaaladaasi, colaadii ay soo martay iyo xaaladda haatan ay ku sugan tahay. Ku dhawaad 30 sano oo colaad soo taagneed kadib, Marka waxay cagta saartay dhabihii nabadda, dib u heshiisiin iyo isdhexgal bulsho. Arrimahaasi oo u horseeday in maanta ay noqoto mid ka mid ah magaalooyinka ugu ammaanka badan guud ahaan Soomaaliya. Waxaa dib u soo laabanaya noloshii caadiga ahayd. qaybtan ugu horeysa ee dokumentarigan waxaynu diradda ku saari doonaa taariikhda dheer ee magaalada Marka iyo dadaalada dib u heshiisiinta ah ee socda. halkani waa magaalada qadiimiga ah ee Marka oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ee Soomaaliya. waxa ay qiyaas ahaan caasimadda Muqdisho u jirtaa inta u dhaxaysa 70 ilaa 90 kiiloomitir, waxayna kaga taallaa dhinaca koonfur galbeed. waxa ay leedahay taariikh gaaraysa in ka badan 1000 sano, waxayna bilaabatay ka hor intaanu Soomaaliya qabsan gumaystihii Talyaaniga. taariikh ahaan Soomaalidii ugu horreysay waxaa la aaminsan yahay in Marka ay deegaan ka dhigteen qarnigii 6aad, waana magaalo ku taala goob muhiim ah oo ku teedsan badweynta Hindiya, taasi oo macnaheedu tahay in ay noqotay mid soo jiidatay indhaha ajaanibta badmaaxayaasha iyo bayac mushtarka ka howlanaa qarniyadii tegey. waxaa ka mid ahaa ajaanibtaasi carabtii bayac mushtarka ka waday inta u dhaxaysa dhulka Carabta iyo qaaradda Afrika, Burtuqiiska iyo weliba Talyaanigii doonayay inuu gumaysto qaaradda. inkastoo ay dagaalo socday ku dhawaad 30 sano soo martay, haddana Marka weli waxaa taagan oo ka muuqda dhismooyinkii qadiimka ahaa, kuwaasi oo ka turjumaya taariikhda dahabiga ah ee ay leedahay magaalada. weli waxaa taagan masaajidyadii, guryihii iyo goobihii taagnaa qarniyo ka hor. gobolka Shabeellada Hoose waxa uu ahaa gobol qani ku ah dhinaca beeraha iyo wax soo saarka, waxaana uu halboolo u ahaa wax soo saarka beeraha ee Soomaaliya. waxaa taasi ugu wacan dhul beereedka hodanka ah ee ku yaala gobolka. sanadooyin badan magaalada Marka waxa ay ahayd halkii dunida looga dhoofin jiray qudaarta laga soo saaro beeraha ku yaala gobolka. waxaa halkaasi laga sameeyay dekad aad u weyn oo ay ku soo xiranayeen maraakiib u kala gooshta dunida, waxaana dekadaasi loo baxshay dekadii mooska ayaa xilligaasi waxa uu ahaa waxa ugu badan ee loo dhoofiyo qaaradda Yurub. dhaqaale badan ayaana ka soo geli jira Talyaaniga oo waqtigaasi gacanta ku hayay magaalada Marka. magaalada Marka waa ku dhashay aniga, ilaa iyo haddana waa ku noole. magaalada waxay soo martay marxalo oo kala duwan oo fara badan. hadda waxaan kaga bilaabaa jawiga nabadeed ay magaalada soo martay. Marka waxay ahayd magaalada ugu qadiimi ah ee taariikhiga ah ee la xusay ahayd. magaalada ka qayb qaadatay ka xoreynta dagaalkii gumaysiga Talyaaniga, gobolka Shabeellaha Hoose dadkii deganaahay ka mid ahaayeen. waxay ahayd magaalo barwaaqaysan oo aad iyo aad u barwaaqaysan. habeenkii markii la gaaro magaalada ninkii soo galaayo oo soo gelitaanka hore hadduu soo galo waxaas la yaabi jiray magaalada dhanka badda may ahayd mise dhanka biriga. maxaa dhacay 30 markabood ee isla wada nal ah magaalada fadhi jiray. halkii maalin 30 markaba fadhi jiray. nalalkaas shidnaa waxay dadka shaki ku abuuri jirtay magaalada ma biriga ku taalla ama badda ku taalla. kadib lixdamaadkii markii ay Soomaaliya hanatay xorriyaddeedii oo loo aqoonsaday inay tahay waddan madax bannaan, Marka waxa ay weli sii waday doorkii muhiimka ahaa ee wax soo saarka iyo in ay halboolo u noqoto ganacsiga casriga ah. waxaana lagu kabay in Marka laga sameeyo warshado noocyo kala duwan leh oo gacan ka geysta wax soo saarka iyo dibad dhoofinta badeecooyinka kala duwan iyo wax soo saarka beeraha ee la casriyeeyay. Marka waxay qabtay 5 warshadood. warshadda hilibka, waxay qabtay warshadda marmalaatiga gasacay la gasaceeyo, waxay qabtay warshadda saliidda looska ee hadda anaga dibadda noogu timaadtay cadeeyda la yiraahdo Marka lagu sameyn jiray. waxaan u maleeyahay maalintii shaqaalo magaalada warshadaha kala aagay ku kala yiileen subaxdii waxaa la yeerin jiray wiish oo shaqaalaha loo yeerin jiray. hashi warshadood 300 400 qof ka shaqeyn jirtay. aduu magaalada subaxdii ugu yaraan 2000 3000 qof oo magaalada degan ashaq u aad jirtay.
ugu yaraan 400-500 magaalada ka bixi jirtay waxay aadi jireen beeraha muuska. xaaladda magaalada marka ayaa se isbedeshay wixii ka dambeeyay bilowgii sagaashamaadkii markii ay Soomaaliya ka bilowdeen dagaalo sokeeye oo dhiig badan ku daatay sababayna in ay dhacdo dowladdii dhexe ee uu hogaaminayay militariga. si la mid ah deegaanada kale ee Soomaaliya waxaa gebi ahaanba burburay kaabayaashii dhaqaalaha ee ay lahayd magaalada marka waxaana meesha ka baxay wax soo saarkii beeraha. dagaalo xiriir ah ayaa waxa uu dhex maray maleeshiyaad beeleedyo iska soo horjeeda kuwaasi oo u adeegaya danaha beelaha ay ka dhasheen. magaaladii hodanka ahayd ayaa isbedeshay waxaanay noqotay goob dagaal burburka iyo meel uu ku daatay dhiig badan. waxaa meesha ka baxay fursooyinkii shaqo ee ay haysteen dadka deegaanka waxayna dadka deegaan ku noqdeen kuwo u nuglaada dhibaatooyinka faraha badan ee ka dhasha dagaalada iyo burburka. waxa ay dhaxleen mushkilado ay ka mid yihiin in ay lumiyaan hanti wixii ay lahaayeen isla markaasina ay dhaxda u galaan tartan dhinaca awoodda ah oo u dhaxeeya maleeshiyada dagaalamayay. waxaa ka mid ahaa dhibaatooyinka in ay jireen dad kalluumaysato ahaa oo lumiyey hanti wixii ay ka dhaxleen awowayaashood iyo aabbayaashood. awlaadaas waxaa u yeelatay hantida in la boobay guriga in la dhaco waxay in la dhaco alaabta in la boobo laba motoraan lahay labadii motor waa laga qaatay waxaan ku shaqaystaa waaye wax ilmey aan siistaa waaye ilaa huuriga aan u noqdo dib aasaaskii waxaan ku bilaabay kulliya shay yarjicu ilaa asliha doontii aan ku bilaawday inaa doontaas aan u noqdo haddana dib aan u noqdo bad aan galo 1982 ilaa 83 motoryaal iyo huuriyaal aan lahay anoo iska dhaqnaa markii burburka asdhacaya dhibkaas ii yimid aday. sanadooyin badan oo ay dagaalo xiriira ka taagnaayeen magaalada marka iyo guud ahaan Soomaaliya ayaa dhamaadkii sagaashameeyadii waxaa si aad u soo shaac baxay saamaynta ay reebeen dagaaladii foosha xumaa. dad badan ayaa ku nafwaayay dagaalada waxaana gabaabsi noqday cunnadii. waxaa magaalada uga sii daray abaartii xumayd ee sagaashameeyadii ku dhufatay Soomaaliya. malaayiin qof ayaa waxaa soo wajahay xaalad macluul iyo gaajo halka malaayiin kale ay noqdeen hoy la'aan. barakac xooggan ayaana dhacay. waxaa la yaab noqotay in magaaladii halbuulaha u ahayd ganacsiga iyo wax soo saarka beeraha Soomaaliya sanooyin ka hor hal mar oo qura ay isu bedeshay meel gaajo loogu dhinto oo dhiig badanna uu ku daato isla markaana dad badan ay ka barakacaan guryahooda. 92gii ilaa 95kii waxaa ku sugnaa magaalada marka UN-kii markaas dalka Soomaaliya u soo gurmaday UNOSOM ayaa yimid. isla markaa yimaadeen waxaa dhacday inay shaqay waayaan way dalkii ka shaqay waayaan isla markaas qabaa'il la jira awgeeda ay keeni waayaan gargaarkii ay ummadda Soomaaliyeed ugu tala galeen degmada markii ay soo gaarsi waayaan ayaa dhacday. isla markaa kadib UN-kii wuu ka baxay dalka Soomaaliya dhibaatadii way lama kacalaysay. ku dhawaad 30 sano magaalada marka waxa ay gacanta ugu jirtay maleeshiya beeleedyo kala duwan oo ku dagaalamaya gacan ku haynta magaalada. waxaa sidoo kale dhacday in marar kala duwan ay magaalada gacanta u gashay kooxda Al-Shabaab. waxa ay xudun u noqotay dagaalo lagu hoobtay oo soo noqnoqday. sanadooyin badan maleeshiya beeleedyo ayaa kala qaybiyay magaalada iyadoo ay dadka shacabku ku adkaatay inay isaga kala gudbaan magaalada. maleeshiyada ayaa waxa ay furimo dagaal ay ka dhex samaysteen magaalada iyadoo mararka qaarna ay jeexeen qadad la isaga kala gudbi waayay. waxa ay gabaad ka dhigteen guryaha iyo saraha dhaadheer dushooda waxaana inta badan dhibaatadu ku dhacday danyarta sida dumarka iyo caruurta. markay dagaaladu dhacaan hooyadu caruurteedii ama gurigeedii waxa laga yaabaa aabihii inuu isku cararo ama inuu askari ahaaba markaas u dagaalamayay uusan guriga uusan warka haynin. hooyadii guriga joogtay caruurteedii dhibaato soo gaaraysa sababtoo ah waxaan aragnay hooyo aan caruurteeda aan qaadi karin xataa aan awoodin waxay gaari ku saarato aan meel ay geysan aysan aqoonin. marka dhibaatada ugu weyn waxaan leeyahay dumarkay soo gaartaa waxaa soo kufsi. waxaa laga yaabaa in guriga loogu soo galo hooyadii gabadheeda iyadoo u jeedo si xoog ah loo isticmaalo gabadheedii meesha lagu kufsado xuquuqdeedii ay meesha sumcadeedii meesha lagu baabiyo xuquuqdeedii ay meesha ku weyso. waxyaalo fara badan baan nagala soo gudboonaaday amba nagu dhacay. aniga kula hadlaya wadano badan oo hadda dhulka Kenya kamid aan soo maray markii hadda dagaalada ay Soomaaliya dhaceen oo macnaha muddo laga soo wareegay markii hore qof iska yar baabanaha
xataa dhibaatooyin fara badan gabdha annaga qayb ka mid ah libaaxa baa dafay gabdha xabadaa ku dhacay annaga xuduudka Soomaaliya ka talaabayna abqalada fara badan naga soo gaaray iyadoo Kenya aan joognay markii Liiba Soomaaliya aan joognay kadib Liiba Kenya aan tagnay waxaan u gudbaynay dhinaca Kenya inaan galay ilaa Nairobi socdo fara badan aan marnay dad badan aan ahayn wax dhaawacmay waxa badan ku dhaceen wixii markaa intii dhimatay amba intii dhaawacantay amba intii libaax naga qaaday intii kale waan iska soo noqonay markaa dib ugu soo noqonay dagaalada ayaa waxay saameyn xoogan ku yeesheen nolosha dadka gaar ahaan waxaa joogsaday adeegyadii asaasiga ahaa sida caafimaadka waxbarashadii iyo ganacsigii inta badan shacabka ayaa ka barakacay magaalada taasi oo sababtay in magaalada ay noqoto meel cidlo ah inta awooday waxa ay u qaxeen deegaanada iyo magaalooyinka ku dhow marka tusaale ahaan dhinaca waxbarashada waxaa xirmay iskuuladii ay dawladdu gacanta ku haysay waxaana soo baxay iskuulo si gaara loo leeyahay balse haddana colaadda jirta awgeed ayay ku adkaatay in ay u shaqeeyaan sidii loo baahnaa saameyn badan way noogu yeeshtay waxaa ka mid ah markaa iskuulka aan furnay xabadii waa xoogeysteen dagaalka mar meelaas u jawaa ciidan ay iska hor fadhiyeen annagii maxaan ahayn arday iyo macallimiin oo waxbarasho meesha u joogay markii xabadaha ayna soo gaareen waan ka duruqna waxaan u duruqna dhankaas xaafadaha dagaalkii waa xoogeystay marba waxaan u fiirinaa arday waa arday yar waxaan u fiirinaa meeshii ay nood jirta u rarnaa dhankan waa cunaynaa waxay rooneed meeshii aan u rarnay adii dhowr meel 5 meel 6 meel ayaa dagaalkii u gurguurnay dhibaatadu intaa kumayna joogsan markii ay meesha ka baxeen maleeshiya beeleedkii waxaa waddanka guud ahaan ka bilowday kacdoon ay hormuud ka ahaayeen koox isugu yeertay maxkamadaha islaamka kuwaasi oo inta badan gacanta ku dhigay waddanka gaar ahaan koonfurta Soomaaliya waxayna gacanta ku dhigeen caasimadda Muqdisho bartamihii 2006 balse wax ka yar 6 bilood kadib waa laga saaray caasimadda waxaa soo baxay kooxda Al-Shabaab oo gacanta ku dhigtay deegaano ay ka mid yihiin marka dabayaaqadii sanadihii 2000 waxaana taasi ka dhashay barakac kale oo xoogan وسي لما كعليسي هديني مر سدحات هديني وحي قعنتو وقشي مليسيات الشباب ugu yaraan 7 sano 8 sano gacanta maleesiyaadka ay ku jirtay kadib waxa yimid dawladii Sheekh Shariif wadambeedkeedii ama dhamaadkeedii waxa timid dawladii baa soo gaartay shabaab oo lagu xuriyay magaaladu dadkii barakac way galeen dagaal ayaa ka dhacay culus dadku way barakaceen kadib dawladii hadeen way ka baxday gacan maleesiyaad oo shabaab hadii mar labaad ay ku soo noqotay haddaba si loo helo nabad kala dambeyn iyo xasilooni waxa laga maarmaan noqotay in la isu keeno oo dib u heshiisiin loo sameeyo beelihii muddada badan ku dagaalamayay magaalada nabadoono ayaa arrinkaasi loo xil saaray kuwaasi oo bilaabay in ay isu keenaan dadkii islaayay hase yeeshee hawshaasi ma aysan ahayn mid sahlan sababtoo ah waxaa dadkii saameyn xoogan ku yeeshay dagaalada soo noqnoqday sidoo kale waxaa dagaalada inta badan ku lug yeeshay dhalinyaro intooda badan aan diyaar u ahayn in ay tala ka dhageystaan odayaasha maamulka cusub ee loo sameeyay magaalada marka ayaa mas'uuliyad iska saaray in uu ka shaqeeyo nabadda dib u heshiisiinta iyo isdhexgalka bulshooyinka waxaa la guda galay bilooyin laga shaqaynayay dib u heshiisiinta iyadoo dadkuna ay bilaabeen in ay dib ugu soo laabtaan guryahooda annaka oday ahaan dadkii inuu wacyigelinayo uu talgal dadkii in la isku keeno aan garan waxaan la sameeyay golo odayaal si hadda waxaan dhibaatada ay noogu timaado si aan iska kaashan lahayn tuulo horta tabliiq kale ina marno ina tabliiq u marno tuulo si dadkii isku yimaadaan way tuuladii hal famil ma degana beledkii hal famil ma degana tuulooyinka hal famil ma degana waa dad isku Mexican bilooyin kadib waxaa lagu guuleystay dadaaladii dib u heshiisiinta waxaana dib u soo noqday bilcidii magaalada amniga ayaa la sugay dadkiina waxa ay bilaabeen inay dib u bilaabaan ganacsigoodii iyo in ay raadsadaan nolol maalmeedkoodii isdhexgal wanaagsan ayaa loo sameeyay beelihii dirirsanaa sanadooyin badan nabadduna waxa ay ku fiday deegaanada kale ee Shabeellada Hoose reerihii halkaan runtii muddada faraha badan isku haystay waxaa laga gaaray horumar fiican dadkii way saamaxeen way heshiiyeen maanta waxay diyaar u yihiin inay wax wada qabsadaan hay'adaha amniga runtii oo halkaan ka shaqeeya ayay ka wada mid yihiin maamulka halkaan ka dhisan ayay ka wada mid yihiin dadka ololaha nadaafadda iyo waxbarashada iyo caafimaadka in degmadan dib loogu soo nooleeyo runtii iska kaashanaya ka wada mid yihiin
iyadoo marka ay dib uga soo kabanaysa dhibaatooyinkii iyo dagaaladii ay soo martay ayaa dadka deegaanku waxa ay rajaynayaan in mar kale aanan dib loogu noqon mushkiladihii la soo maray waxa ay ku faraxsan yihiin in haatan ay guranayaan midhihii dib u heshiisiinta nabadda iyo xasiloonida wax dhib aan ku qabno magaalada marka ma jiro markaan ku dhashay aabiyaa ku dhashay awoowayaa ku dhashay marka alxamdulillaah aad iyo aad ay u maxsan tahay nabadgelyo aan ku qabnaa wax dhib aan ku qabno ma ila aha in lagu noqon doono ma ila aha